dhalinyaradan Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho kana kooban dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa waxa ay dhawaan fureen xarun lagu magacaabo coronavirus Soomaalida Norway. xafiiskan oo dhalinyaradan Soomaaliyeed u soo shaqo tagaan labada gelin ayaa waxa yaala telefono ay dadka Soomaaliyeed soo wacaan 10 subaxnimo ilaa 8 habeenimo si loo siiyo talooyin iyo taakuleen ku aadan xilligan adag ee dalka Norway iyo dalalka caalamku ay kula tacaalayaan cudurka coronavirus. Faisa Warsame Hope Competence kana mid ah howlwadeenada xafiiskan ayaa ii sharaxday ujeedka ay dhalinyaradan u fureen xafiiskan. xaruntan waxaan u furnay li'aana waxaa jira dad badan oo أنا لوقد نرويج سيفي عنو أقونين تلفون هذا السمية إيو هيئة عافمات كوحي سميسينا أين أخبار تودو جارينين يعني ما دام أي ترندد أو لوقد كو أذك تهاي أو بدن كدت كواوين يعني إيو كو أذك تهاي يعني كمبيوتر هذا سيد الله استعمال أخبارات كحاجة إنين كلسو بيحي كرينين بوحنج على سنة إن أصمينا ميل حرون أو أي لوقد هذا أي لقولها هذا يجو information كبوجن كران يعني ماشى وحنا سمينا إن أي فرنتها اثنين إلى أحد طبعا كصبح نمو إلا أي سداد ذهبين نمو يعني واحد شو جسسيون ومر أو دتك وجت شوابي كرا وحي كوش سابسن ناب إيو دتك شقوين كلاجا فريسية يعني إيو كو عافمات كا يعني لنا كورونا حنون كاسيتو كحرن la xiriira wayna jirtaa marmar inay dadna soo wacaan oo yani si zaa'ida u xanuunsanaya iyagana meel kale lagu sii hay'adaha caafimaadka lagu sii xiro shaqadeena kuleba hadda sidaas ay tahay muhiimadeenu waxa weeyaan information fiican inay dadkeenu ay helaan liimaan cabdullaahi jaamac oo dhakhtarka shaqada ku qornaa xilligan aan booqday xaruntan coronavirus Oslo ayaa iga warramay hawshan balaaran ay u hayaan dadkooda Soomaaliyeed ee Norway. السلام عليكم مقعي وحال الله ليبا عبد الله جامع وحانا هنين دكتورة او هاد اللي تشوغو تلفون كورونا او مجال أوسلو تلفون كان وحا بنوبلاوي فايسة ولاشينا ايضا اركتي دواتو كهيستو حقا ايشيك information كسومالي دي قارايو جيردان لدو كورونا هادا انا ميشان وحا مدنا انا كعاويو او سومالي دا مشرحو دواتوينك اي كورونا sida ay iska ilaalin lahaayeen iyo sida macnaha hadhowta ay familygooda iyo dadka ag jooga u ilaalin lahaayeen. sidoo kale Aamina Liibaan Cabdullaahi Suuriye waa kalkaaliso caafimaad waxayna ii sheegtay in maalintii ugu horeysay toddobaad ka hor markii xaruntan la furay ay soo waceen in ka badan 40 qof oo Soomaali oo walaac ka qaba cudurka coronavirus. waxaa la dhahaa Aamina Liibaan Cabdullaahi Suuriye waxaan ahay nurse oo ka shaqeysay raadiyo hospitaalka maalin dhow isbuucii hore isniinta waxaan furnay corona telefoon aan ugu sheegayna dadka Soomaalida information ugu gudbinayna oo af Soomaali ee corona sida ay ku dhacdo sida la iskaga qaado iyo sida oo loo yareyn lahaa in cudurka dadkan ku baafo marka maalintii ugu horeysay badan aan soo wacay hortii 40 adi iyo ka badan way ku dhawayd waxa isku jiray rag iyo dumarba wiliba waxa u badnaa waa ragga oo hayo su'aalooyin badan qabay marka waxaan isku daynaa inaan ka jawaabno wixii anaka aan caafimaad ahaan dhinacay tahay marka alxamdulillah internet hada waa isku wadnaa dhakhtarna nala joogaa psychiatrist way joogaan iyo maxay soo mer shift aan soo galnaa kulligan Soomaaliland shift soo galnaa xasan Saciid Raasta raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Oslo.